جمهورية الصومال مدن أحمد محمد محمود سيلانيو ayaa salaada jimcaha maanta kula tukada shacbiga ku dhaqan caasimadda Hargeysa masaajidka Calimataan ee bartamaha magaalada Hargeysa. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo ay weheliyeen mas'uuliyiinta qaranka ee kala duwan ayaa shacabka ku dhaqan caasimadda Hargeysa kula tukaday salaadii jimcaha masaajidka Calimataan oo kamid ah masaajidada waaweyn ee ku dhex yaala caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا tukashadii salaada jimcaha kadib madaxweynaha Soomaaliland waxa uu socod luga ku marayay faras magaalada caasimadda halkaas oo dadweyne aad u tiro badan ay ku soo dhaweynayeen madaxweynaha si farxad ku dhehnayd waana madaxweynuhu u kuurgalay xaaladda suuqyada magaalada si uu wax uga ogaado waayaha shacabka. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa socdaalkiisa uu ku marayay bartamaha magaalada Hargeysa aanay ku weelin wax ilaala ahi waxaanay taasi muujinaysaa nabadgelyada taamka ee eeba ku manaystay Soomaaliland. imaamka masaajidka Calimataan Sheekh Maxamed Aadan iyo xubno kamid ah culimo awdiinka ayaa dareenkooda muujiyay. madaxweynihii dalka ayaana soo booqday runtii masaajidku waxa uu ku yaalaa centerka magaalada waa bartamihii magaalada Hargeysa waa masaajidka runtii ugu shacbiyada badan marka booqashadaas runtii waxay ahayd booqasho wanaagsan madaxweynuhu ku mahadsan yahay waxaana cadeynaysaa ummadda muslimiinta ah safka hore marka ay wada galaan madaxii iyo mijaha wada galaan ummad nasri iyo guul soo socoto waxay kaloo muujinaysaa nabadgelyada runtii dalka ka jirta ilaahay amniga uu ina siiyay isaga awoodiisa inagu siiyay waa amni iyo nicmo ilaahay uu ina siiyay waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa ilaahay inoo siyaadiyo runtii waxa ay tilmaamaysaa booqashada madaxweynuhu masjidka Calimataan dadka jamaahiirta kula soo tukaday safka hore ku tukaday waa mare waxay ka tarjumaysaa amniga iyo nabadgelyada ka jirta dalka ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu taabagud inooga dhigo amnigaas. ma aha markii ugu horeysay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu shacabka ku dhaqan caasimadda Hargeysa kula tukado masaajidada waaweyn ee magaalada Hargeysa isla markaasina uu maro suuqyada harcad iyo habeen. waxaan caawa taageeraynaa guddiga khilaafaadka xalinta khilaafaadka xisbiga kulmiye ee uu magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxaan leenahay hambalyo laakiin waxa weeyaan kulmiye horta kii kala tegay maya kulmiye kala tegi maayo horena uu kala tegin maantana ma kala tegayo runtii waxaan mahad ballaaran soo jeedinaynaa marka ugu horeysa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo sanahay khilaafaadkii ka dhaxeeya xisbiga kulmiye oo soo dhamaaday waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa guddiga khilaafaadka oo kurba laga jirtay ilaahay khayr